بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلبت waxaan duubaynaa cashir yar oo ku saabsan sida kombiyuutarkaada dhexdiisa uga isticmaali lahayd sidaad kombiyuutarkaada dhexdiisa uga isticmaali lahayd WhatsApp-ka. Si aan barnaamijkaas u sameyno marka waxaan soo furaynaa Google Chrome-ka ayaan soo furanaynaa. Markuu Google Chrome-ka sidaa noogu soo furmo halkan u koreyso searching-ka waxaan ku qoraynaa WhatsApp ayaan ku qoraynaa kadibna enter ayaan dhahaynaa. Markuu daaqadan noo soo saaro waxaan tegaynaa halka ay ku qoran tahay web WhatsApp. Markaan ku dhufano web WhatsApp wuxuu noo soo saari doonaa daaqadan. In yar ayaan sugaynaa, wuxuu raadinayaa QR code ayuu raadinayaa. Markaas kadib ayaan tegi doonaa WhatsApp-kanagii taleefanka noogu samaysnaa. Markuu soo saaro QR-kan waxaad soo furanaysaa WhatsApp-kaagii moobeelka kugu jiray. Waxaad tegaysaa meesha u koreyso saddexda dhibcood ee isdul saaran ama isdaba yaalla ayaad tegaysaa. Saddexdaa dhibcood markaa soo furto waxaad ka raadsanaysaa meesha ay ku qoran tahay liiskaas dheer oo qoraalka ah, meesha ay ku qoran tahay linked devices. Mar kale ayaad dooranaysaa linked device. waxaad dhahaysaa use mobile data. Kadibna waxaad ku aadinaysaa taleefankaada QR-ka kaaga muuqday kombiyuutarkaaga. Login ayuu leeyahay. In yar kadibna wuu log gareysmi doonaa. Waxaa furmi doono akoonkaadii WhatsApp-ka wuxuu ka furmi doonaa dhinaca kombiyuutarka ayuu ka furmi doonaa. Sidaas ayaadna ku isticmaali doontaa WhatsApp-kaadii adoo isticmaalaya kombiyuutarka ayaad ka isticmaalaysaa halkaa insha Allah. Sidaa aragtaba WhatsApp-kanagii moobeelka waxaan usoo wareejinay dhinaca kombiyuutarka ayaan usoo wareejinay. Halkan ayaadna ka isticmaali kartaa sidaad horeyba uga isticmaali jirtay moobeelka uga isticmaali jirtoo kale. Waxbaad ka diri kartaa, waxna waa lagu soo diri karaa. waa moobeelka caadiga ahaa oo kaleeto waaye. Intaasaan noo jooga cashirka.